Sasa amepewa mamlaka kamili ya kukaa location hii ya Jikjika. Kuna zawadi anapewa kuanzia Embakasi training zote. markaas shalay maqribka ii sheegay waliba asoo yar goodinaad ii sheegay markaan runta idin sheegay waxaase dhahay berri waxaan u socdaa xaflad cidi reer Awdumaal ay leedahay. Dumaal wax ma ka rabtaa sida markaan waxay qabatay ninka oo maqashay cidan dugudyaha oo waxoo dhibka loo ogay kuwa ay sheegayeen oo xajka aaday mid meelahan joogo telefoon u soo diray war xajkan jooga ee maxaan ma arad ku sheegay war xajka ma ahneeyo ma xajka tag nabiga hay ugu dirnasna marka waxaan dhahay bedelkii Dumaal liigu dir lahay aan hurdalaan noqdo maama marka sidaas aan ku imaaday sidii runtii tolka waa maadsan yahay dadka markay madax yihiin oo Ilaahay fursad siiyo inay ummadda isku dirin in dib ayaga ay keeneen asdii ku daadan wax qabashada iyo hadda waan ku faraxsanahay magaalo Jigjiga la dhaha oo 4 sano jirta oo booliis qabta oo intii dawlad ay qabta oo biilo soo jiidahayo oo cid reer Awdumaal madax ka yihiin inaan imaado laakiin meesha hada la isku digaala oo wiilka Dumaali wiilka Jibril la kala celinahay intaan magaar leedahay may marka inkastoo aniga aan ku jiro dadka degmooyinka faraha badan ka soo horjeeda maxay aniga geleeyana geeliya meelaas noo daaqala ana hadan keenan yahay Jigjigada caanolan location ko saana ka dhigalayo ko isku dhaxdarsan degmo cusub ma ogoli laakiin waxa muhiim dadka inay nabad ku wada noolaadaan muhiimada madaxtinimada Ilaahay xaqiisa ay ka imaada waqti ay ku xiran tahay dadka walaalaha ninka Jigjiga ka imaaday ee shirshir ka imaaday inaas hadhaadho gurigiisa ay noqoto maan hore shalay habeen hore waxaan la hadlayay muse ogle sultaanka ciidan Maxamed Subeer oo oday wajeer waxa yiri wariyaa lodayda inay barmil xageeda jirta ma ka warqabtaa anda hadda waa mahadsantahay si fiican noola soo dhaweey maan roobkaas kiisi kalena geelayga joogay dif hadda dif dadkaas loo xumayn lahay kuwan ma la soo dhaweyn lahay marka ummadda inay isu dhax socoto ana meelan madaxkay keenan madaxkay Rashid meelan madaxkay ummadda aan la kala celinin walaal noqdo la soo dhaweeyo ayaa muhiim oo in goobna antu Ilaahay hore maanta lilmi sheegay waxa wanaaga waxa horta wiilka halka chiefka laga dhigay maanta la joogo waa chiefka wadanka Kenya uu yar taasna waa wax weyn marla wadanka Kenya maanta chiefta aan garanaa ninka uu yar waa iska badhicne hadalindii la ilmu ashad dastuurko marka waxaan rabnaa mid ka halka Jigjiga laga dhigay 3 sano 4 sano soo socoto in adignaas dhiyo noqoto waxaan ugu dadaalaynaa maadaama inuu soo noqdo dhiyoga ma fiijinayna laakiin uu noqdo dhiyoga caan oo hadana waqti dhow يعني ساس موتيفيشن ما كسوق أقوياء مع إنه هو صوص ركض معناه هذا الويل كان يروح تشيف كلوسي وحرنا هنا الزناشيب تلك الوسك كديد ونقصنا مسجد بدل باليس أو أستن تشيف كاو أستن تشيف كنا هو ما ده لا يدور وقت الدواء سكر ولا سرجيني تشيف كأنه كو ناس ما ده لا يدور حفيز كيسي ودسينيا بنا كوميشنر ofisi yake tumejenga kwa sababu tulikuwa tunajua atakuja Hafiz chief kama udisinya waliacha demaden ofisi yake iko tayari sio ati itajengwa imejengwa already kwa hivyo anakaa tu kwa ofisi maadaama magaalada inu ku sabarteen maana unalke maadi dawladda Kenya waxay hadda in hagaajisay in biilin soo jiido magaaladan ceel badan ka biimayne insha Allah socodka damboon halkay maadi doono taangi biyaha أنا جيريال أبور كذا زايد وجعله تانجي بيا أما تانجيال بيا إيو بيروين وجيريال وبير إن هالكان جيجا أنكا جاجين دوم لا يديره ويل كايرو تشيف كان لدبن بجينا دبن كاونتي كوميشنر kijana huyu ni mdogo sana na hapa kwa bahati nzuri
ako na ofisi, serikali yetu imemjalia awe chief, na wasihi wala wananchi wa hapa, kijana huyu apatiwe, asaidiwe, afanye kazi, yeye ako na ofisi, na ile kidogo ambayo imebaki assistant chief kupitia ofisi yako bana deputy county commissioner, tuhakikishe pia imeorodheshwa na wananchi pia hapa watafute kijana ambaye pia atafanya kazi hiyo kazi. Anagoo maanta ka qayb qaadanaya inaugurationka locationka Jigjiga iyo chiefkiisi oo maanta koofida loo saaray oo ushii iyo mas'uuliyiinta lagu wareeji, anaga sharaf weyn ayaa ii tahay. Sharaftaasna waxay ku mid waxgalka iyo horumarka jeclaanta walaalkeen honorable Keenan. Aniga waxaan u leeyahay reer Jigjiga, horta horumarka iskama imaado. Horumarka meel hadda aniga aan aaminsanahay oo 4 sano jirta oo location laga bilaabay, the youngest chief ninkan horta the youngest chief aniga waa aqaana macneeda iskama imaado, sahalna maaha. Chief 24 jir ama ina ka yar oo hadda Kenya chief laga dhigi karo ma jirto. runtii inaad ogaatiin ayaan rabaa. Iskama imaado, iskama imaani karto. Location in la bilbilaabo ma fududo, haddana office loo dhisa ma fududo. marka waxaan u maleynayaa ninkan walaalkeen aad iyo aad baad ugu hagar baxay beesha walaalkeen walaalaheen dumaal gaw aad baad ugu hagar baxay ayaan aaminsanahay. marka kolley waxaan u maleynayaa sharaftaas idinka ayaa la yimid. idinkan waxaan u maleynayaa xurmo maxaa la yiri xusul dhaqaaqay maxaa mudan yahay xurmo xusulkan hadduu maanta ninkan dhaqaajiya asaga xurmad ayaa mudan yahay. marka xurmada iidaheed nin siyaasi xurmadiis waa taqaantiin ayaan u maleynaa sooma nin siyaasi xurmadiisa waa taqaantiin. waxaan ninka sugaynaa inaad idinkana xurmada xaggiina ay ka imaado iyo wanaaga asaga intusi inay ka imaado ayaan doonaynaa.